bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibayaal kusoo dhawaada mar kale iyo channelkeena youtube-ka ee FPL Soomaali saaxiibayaal waxaan isku ogeyn inaan duubno hordhac kasta oo UEFA Champions League Fantasy ku saabsan laakiin toddobaadkan iima suuragelin inaan sameeyo hordhicii toddobaadka match day 4 oo kulamo muhiim ah la ciyaaray laakiin waxaan isku dayaynaa inaan ka gaarsiino kulamadii hadda ugu dambeeyay la ciyaaray iyo natiijooyinkii xiisaha badnaa iyo markii la dhaho fantasy-ga ciyaarahanada ugu fiicnaa ee match day 4 iyo UEFA Champions League Fantasy saaxiibayaal waxaan xasuusinayaa inaad kusoo biirtaan channelkeena youtube-ka FPL Soomaali sidoo kale aragtidiina aad kusoo dhiibataan wixii aad isleedihiin waa tusaale ahaan markaan aragti aan ka dhiibto inaad kusoo dartaan oo commentiga aad kusoo dhiibataan saaxiibayaal usbuucan waxaa la ciyaaray match day 4 oo kulamadii afraad ee Champions League Fantasy ayaa la ciyaaray kulamadaasi markaan fiirino natiijooyinkii ugu muhiimsanaa waxaa ka mid ahaa kulankii kooxda Liverpool ay ku garaacday kooxda Atletico Barcelona oo 1-0 ku badisay Real Madrid oo soo badisay Manchester City oo ayadana guul ay soo gaartay kooxo muhiim ah ayaa soo guuleystay laakiin bal aan fiirino markaas si guud kulamadii la ciyaaray iyo natiijooyinkii u soo baxay guud ahaan kooxaha kooxda Chelsea ayaa kulan dibadda soo ciyaartay oo waxay la soo ciyaartay kooxda Malmo waxaana kulankaasi ku soo dhamaaday 1-0 Wolfsburg iyo Salzburg oo sarkeena waxay ku soo dhamaatay 2-1 Villarreal iyo Young Boys oo sarkeena 2-0 ay ku soo dhamaatay Juventus iyo Zenit oo sarkeena waxay ku soo dhamaatay 4-2 Bayern iyo kooxda Benfica ayaa sarkay waxa Bayern ay 5-2 kaga badisay kooxda Benfica Sevilla iyo Lille ayaa ayaguna ciyaaray oo Lille ayaa 2-1 ku badisay Dinamo Kiev iyo Barcelona waxay ku soo dhamaaday 1-0 Atlanta iyo Manchester United waxay ku soo dhamaatay 2-2 Real Madrid ayaa Shakhtar Donetsk 2-1 uga badisay Milan iyo Porto oo wada ciyaarayna waxay ku soo dhamaatay 1-1 Sporting iyo Besiktas waxay ku soo dhamaatay 4-0 Dortmund ayaa iyana la kulantay guuldarro oo waxay kala kulantay kooxda Ajax oo 3-1 kaga badisay kooxda Sheriff iyo Inter oo sarkeena waxay ku soo dhamaatay 3-1 Liverpool oo martigelisay kooxda Atletico waxay ku dhamaatay 2-0 kooxda Manchester City ayaa iyana ciyaartay oo waxay ku soo dhamaatay 4-1 oo waxay ka badisay kooxda Club Brugge RB Leipzig iyo PSG waxay ku soo dhamaatay 4-2 ayay ku soo dhamaatay balan fiirino marka ciyaarahanadii toddobaadkan ciyaaray fantasy-ga iyo kuwii ugu dhibaha badnaa waxa ugu dhibaha badnaa ciyaaryahanka lagu magacaabo Robert Lewandowski oo kulankii kooxda Bayern ay 5-2 uga badisay kooxda Benfica gool muhiim ah dhibco muhiim ah ka soo xareeyay ciyaaraanka kale asna dhibcaha 18 keenay waa Pedro Gonzalez oo keenay 18 dhibcood marka si guud kooxdii Dream Team-ka ee UEFA Champions League Fantasy waxa ay keeneen goolayaha ugu horeeya goolayaha kooxda Benfica waxa uu keenay 7 dhibcood goolayahan ayaa shabaqiisa 2 gool laga dhaliyay laakiin qaab ciyaareedkiisa ayuu ku keenay in intaas uu helo Alexander Arnold oo ciyaara kooxda Liverpool ayaa isna keenay 14 dhibcood Alexander Arnold wuxuu ka qayb qaatay in kooxdiisa Liverpool ay shabaqooda ilaashadaan laba caawinna sidaas ku sameeyay oo kooxdiisa ka caawiyay in ay Atletico 2-0 uga badiso difaaca kale waa Baku oo u ciyaara kooxda Wolfsburg asna wuxuu keenay 12 dhibcood Joao Cancelo ayaa 13 dhibcood keenay kooxda Manchester City oo asna uu ka caawiyay in kooxdii 3-4 ay uga badiso kooxda Club Brugge Cancelo wuxuu sameeyay ilaa 3 lay oo assist ayuu sameeyay oo caawina marka waa muddo kadib ayuu sameeynaya bandhigaasi marka loo fiiriyo in ciyaaryahan oo Champions League oo assist intaas la eg uu ka sameeyo waxa kaloo marka loo fiiriyo qadka dhexe marka fiirino difaacadan ka gudbino Christopher Nkunku ayaa isna waxa uu keenay 12 dhibcood Christopher Nkunku wuxuu ciyaaray kooxda Leipzig oo 2-2 la gashay kooxda PSG oo marka Wijnaldum uu 2 u dhaliyay Nkunku waxa uu keenay goolkiisii markii daqiiqada ay mareysay 8 Nkunku ayaa hadda gool dhalintiisa xataa aad ay u fiican tahay waxa uu ka mid yahay ciyaaryahanada qadka dhexe ee goolasha dhaliyay ayuu ka mid yahay Wijnaldum ayaa isna keenay 12 dhibcood Wijnaldum 2 gool ayuu soo dhaliyay oo PSG 2 ayuu soo dhaliyay kulamadiisii ugu horeeyay ayuu ciyaaraya sidoo kale goolashiisii markii loo bilaabay oo nin inta badan wuxuu ahaan jiray qadka dhexe goolka dhaliyo
ciyaaraanka kale waa Etienne Cabot oo ciyaara kooxda Villarreal ayaa iyana ku soo badisay kulankeedii ee Champions League kooxda waxay ka soo badisay Young Boys oo 2-0 uga soo badisay. Etienne Cabot asna waxa uu aad uga qayb qaatay kulankaas oo uu ka caawiyay in kooxdiisa Villarreal ay gool muhiim ah ka gaarto oo ay boos fiican ka soo cirirsato groupka ay ku wada jiraan kooxda Manchester United, Atlanta, Villarreal iyo Young Boys. Dybala oo ciyaara kooxda Juventus ayaa asna keenay 16 dhibcood. Dybala wuxuu dhaliyay gool taariikhi ah oo uu kooxdiisa Juventus ka caawiyay in 4-2 uga badiso kooxda Zenit. Lewandowski oo kamid ah ciyaaryahanada ugu dhibcaha badan asna wuxuu keenay 18 dhibcood oo waxa uu Lewandowski ahaa ciyaaryahanka markii la dhaho saameyntiisa ay muuqato mar walba dhinaca Champions League-na gool badan hadda ka dhalinay kulamadiisii hadda goolashiisa iyo xil ciyaareed fiican ama aad u fiican ku jira oo hataa doorarka ugu fiican ee ku guuleysan kara inay ku guuleystaan Ballon d'Or sanadkan inuu noqon karo. ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa asna keenay 14 dhibcood. Cristiano Ronaldo ayaa 14 dhibcood ka keenay kulankii waxa uu ka caawiyay kooxdiisa Manchester United, Atlanta ay 2-2 kula galeen isagoo 2 gool oo muhiim u dhaliyay. Goolka ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa goolka barbardhaxa oo uu keenay daqiiqadii ugu dambeysay ee ciyaartii ka dhacday garoonka kooxda Atlanta. saaxiibayaal waxaan intaas kusoo gabagabeynayaa UEFA Champions League Fantasy wararka ku saabsanaa toddobaadyada waxaan isku dayi doonaa inaan si guud aan u dulmarno ka hor usbuuca intuu la ciyaarin. waxaana hadda lagu dhow yahay gabagabadii oo laba usbuuc ciyaareed ayaa ka harsan oo matchday 5 iyo 6 baa ka harsan. marka kadibna waxaa loo gudbi doonaa in wareegga 16 iyo wixii ka dambeeya ilaa bisha labaad loo gudbo. sidoo kale dhinaca jibaarada markaa fiirino Champions League wuxuu leeyahay wuxuu la mid yahay sida UEFA Champions League UEFA Euro 2020 oo kale aan soo aragnay uu la mid yahay. waxaa jira jibaar sida wild card oo kale limitless ayaa jiro oo dhinaca marka FPL ka u fiirsatid FPL hal mar marka ciyaartid free hit-ka waxa uu ku siyaa in kooxdaada hal mar isbedel ku samaysid kadibna toddobaad ku xiga ay sidaas ku noqoto. marka limitless-ka taasi waxoogaa wuu ka yara duwan yahay laakiin inta badan way ka sameeyeen kooxdaadii ayaa isbedel ku samaynaysa adoo isticmaalaysid budget aan xadidnayn. toddobaadkan iyo toddobaadyada laba toddobaad hadda harsan waa isticmaali kartaa. sidoo kale waxaa isticmaali kartaa wareegga 16 aad isticmaali kartaa. haddii aad hore u isticmaashay waa hal mar oo kaliya mar kale ma isticmaali kartid. intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa saaxiibayaal aad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.